dhammaan asxaabteeda daafaha dunida kala nool meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay ku soo dhawaada Tani TV maanta waxaan ku suganahay magaalada London gaar ahaan North London gaar ahaan Wood Green xaflad weyn oo dhaqanka oo ay soo abaabushay Rise Project waxa dhinacay ka taagan mid kamid ah mas'uuliyiinta Rise Project ayaa halkay taagan Ahmed soo dhaw وندوه ولا بشير تاني والمحسن تهاي سيد أكسون تهاي ورتما مركي ورئيسان حلفة كبرنا تي فوتبول شاتمي وحي كم تهاي حلفة دنو حلفة لها أنو كبرنا سنة كي one of them كوا كلا تمينا ويشران كوا كبرنا كلا وذي من يسا وندوه أحمد وتشدد عاد كلا يريهن حفلة دقن كيدا هي دقن كاي عاد كوكا وتن حافظن بليرة بدون حتى أنا في الصومالي قرني بتشوكتا وتشدد بالنوشك وشاهدنا أورك الرئيس وأسميه حلفة وحويا إن مركه هرب دقن كصومالي لن يريد بيوسع عليه marka labaadna waa in la isku muujiyo la tuso inuu nahay community jira oo kamid ah community-da Haringey jooga qofkii aan ismuujin waxay Soomaalidu kuma maaha afjooda looma adeego hadaynaan inagu ismuujin hadaynaan Soomaalidu aanay dhaqankooda soo saarin dadka kalena kuma arkayaan dad ka tirsan marka arrimahan imika xooga saarayna waxay kamid tahay guryaha housing-ka shaqo gelinta My name is Hidayah Ali. Today I am here at the Community Hub Centre at the Somali event for Rise Parrot Haringey Rise Project, and this event's going really well. Everyone's having a good time, and there's a lot. Everyone's dancing and having fun. حفلة كان عيسى حافظ وود جرين جارهان حافظ نوف لنا جارهان وود جرين هنا أي واحد تاجن متكملة بليرة عروض الصوماليين كسوق بالشيء حفلة ما قاعد يشيء Nafisa. كور حفلة ماتا how was it? It was really good. I really enjoyed it. What did you see today? I saw a lot of people doing musical traditional dancing, and waxaa halkay taagan mid kamid ah dhalinyarada degan magaalada London magacaaga sheego Abdiqaadir waxay degantahay Abdiqaadir Halston buu yimi xafladan hidaha iyo dhaqanka ya asma mamsas ka waran xaafadan ama xafladan hidaha iyo dhaqanka ee ay Rise Project soo abaabushay So this hafid, I can speak English. Haringey Somali remix. Haringey is like, it's not best reputation, but Somali community here, they didn't leave. They tried to rebuild it. They're trying to be, even though they're minority in Haringey, they're trying to make a community, trying to like they have councillors here. The councillors are supporting them, and so they want to show that they are being active in the community. So I'm here just to. It's my first time here because I don't live here, but Somali communities, I'm just trying to kind of see different communities, you know. imika garabkayga waxa taagan xildhibaan runtii waa xildhibaankaygi oo ka socda xaafadda Islington soo dhaweey walaal Bashir magaciisa weyna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta meesha ka casinteen maanta aad ugu faraxsanahay in Soomaalidu isku yimaadeen reer Haringey ma fahamtay waxaan ahay maanta marti maanta oo soo socday ma fahamtay oo ka soo qayb galay ma fahamtay aad ugu faraxsanahay maanta waxa arkay maanta xaflad waxa ka dhacday hidayada dhaqanka waxaad ku arag maanta maxaad meesha ku aragtay waxa arkay marka hore reero isku xidhan ma fahamtay waxa ugu fiican ma fahamtay maadaama wadankeena ahayn Soomaalida markay Ingiriiska yimaadaan waan isku xidhnaado ma fahamtay Soomaalidu waxa arkay dhaqankii soo baxay xaruntii qosqosliya oo waalidiintiina barday dhaqankoodii iyo afkoodii iyo isna soo ugu faraxsanahay maanta walaal waxa arkay waxaa garabkayga
taagan gudoomiyaha Rise Project baa taagan oo Bashiir cawaale ku soo dhaw waan dhowahay Bashiir oo ma santayn cawaale iminka waxa isugu ka dambeysay bishii hore isugu ka dambeysay xaflad aad u weyn bad qabateen oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay isugu keenteen youth-ka under 16-ka koob u qabateen ama tournament 2 weeks ago bay ahayd imika xaflad kala haysaano tii hidaha iyo dhaqanka dhinacii sportiga dhinacii dhaqanka bal noo waran hawshan aad iyo aad wallahi horta wax kasta oo ku dhex jirnaa haday tahay sport community housing haday tahay maxaa ku raadiye dhaqanka iyo haday tahay mataqaana wacyigelinta community-gaba waxaas oo dhan ku dhex jirnaa marka guud ahaan Rise Projects Somali community-go lama shaqeeyo waxaan la shaqeynaa dadka loo yaqaan beema ajnabi oo dadkaas oo dhan la shaqeynaa awaalo xafladan waa dhaqankii waa maxay ujeedada ka leeyihiin dad baa dhalinyaro badan baan arkay oo runtii aad uga heshay oo leh sanad walba in la qabto waa xafladii horeysay nooceeda laga qabto North London ujeedada operation runtii ujeedadu way badan tahay laakiin anagu saddex baan ku soo koobnay ujeedada koowaad waxa weeyaan in community-ga loo abuuro fursad iskugu yimaadaan oo dabaaldegaan talabaad waxa weeyaan in caruurta Soomaalida la baro dhaqankii haday tahay hidihii muusigii dansidii kala duwanaa iyo haday tahay gabayadiiba saddexaadna waxa weeyaan inaanu muujino in haddaan nahay Soomaalida community harange ku nool xaafadaha Soomaalida ugu badan tahay inaanu wax qaban karno wax dadka u soo bandhigi karno isku duubnaadaan maxaa kula wax badan aanu samayn karno awaalo mashquul baa tahay oo hawsha ku guda jirtaan oo ku soo gaabinaya walaal waxaad ii sheegtaa waxyaabaha kale aad qabataan sportska iyo dhaqanka marka laga yimaado dhinaca guryaha shaqaalaha dadka ka caawisaan waxaasoo dhan waanu qabanaa imika waxaanu la shaqeynaa NHS-ta waxaanu wadnaa mashruuc weyn oo ku saabsan mental health waxaanu la shaqeynaa job center-ko waxaan kuna dadkaanu shaqo geynaa waxaanu leenahay football team iskuuladaanu la shaqeynaa meel kastoo dad Soomaali joogaan runtii aad baanu mataqaanaa u danaynaa inaanu mataqaanaa dadka caawino waayo Soomaalidu inkastoo dalkan badan imika ku nooshay haddana waxaa dareemaysaa adeegyadii iyo servisyada kala duwanaa inaan aad u isticmaalaynin marka anagu waxaanu runtii u joognaa inaanu mataqaanaa dhibaatada Soomaalida abuulno aan dadkana aan caawino si aan caawin karno walaal wal fasaxaya mashquul baa tahay aad iyo aad baad maasantay Bashiir thank you brother garabkayga waxaa taagan guuleed oo degan North London gaar ahaan Finsbury Park guuleed ka waran xafladda maanta It's really good. A lot of events, Manta, a lot of music, and just everyone having fun. Yeah. Do you want this kind of event to happen every year? Well, yeah, if it's possible, yes. What do you want to say to the organizers? My Senate, thank you very much for organizing it. And yeah, hopefully it happens again next year. Inshallah. Thank you very much, Walala. Hi, my name is Zain, and I've been to this event, and I've seen traditional dances and food and songs. garabkayga waxaa taagan waa magacayga sheeg Cabdiqaadir Maxamed Mushaax baa la yiraahdaa xaafadan aan ku noolahay muddo dheerna aan ku noolaa runtii waxaan jecelahay maanta waxyaabaha dhacaya si dadku isugu imanayaan loo adkeenayo hidiyo dhaqanka laakiinse waxa weeyaan dadku haddaan waxba qabsan cidna waxba ma qabato marka waxaan jecelahay dadkii inay dadaalaan oo hore u sii socdaan insha Allah aad iyo aad waa maasantay idinka mudan haddii aad maqasheen ifka nuura foosiya ee ag taagan fanaanada waxaan ku leeyahay dhinaca dhaqanka marka timaado foosiya waan ku salaam وانا كقاعدة والله ما شاء الله هرت عادي بورت ما سنتين ولقى لها مثل الحلفات كنا ولقى ما أركن كوميونتي فما الله والله ما أركن وفيرست تايم كان قصة قيب قلا أبسل هرت وحنا وهلاي أنا عادي وهلاي إنا ير وهلكم كل شيء والله مكو هلا وحنا كل وانشر العادة ومر قدم حتى استيج خصوصا تجوهم باللي المر إنجليز كل شيء وقبل يا ولقى ما أركن ما شاء الله ميانا أورنكر وحنا هدد ما شاء الله حرام مرة منا أورنكر وهقولي هو يوم معان يا أبي معان بقصة صورن كرنا ما داي أفكي سيسو وانا كل شيء وأفكي سكوب قبيا وكوب جراريا محكة ونفسنا عادي أنا وانكم بليانة يا كل يوم بليانة تنكس ما دلايا waxaa joognaa xaflad hidaya dhaqanka oo soo abaabishay Rise Project waxa dhinacay taagan xildhibaankii ugu horeeyay ee Haringey baa taagan soo dhow kharlawsiyo maanta waxaan joognaa xafladii Rise Project oo maanta ka qayb qaadan xaflada Wargreen alxamdulillah Haringey Council lacagtii oo dad iyo waqtigii siiyeen dadkii inuu ka dhex qayb galaan xafladii
alxamdulillah dadkan waxaan mahadsanay inay imaadaan insha allah this is the future hopefully for more engagement xildhibaan waxaa tahay xildhibaankii ugu horreeyey ee la soo doorto xafladii hore ee Rice Project soo abaabishay ee kubaddana waa joogtay tanna waa joogtay xafladaha noocana ee hiddaha dhaqanka hadday noqoto dhinaca ciyaaraha ma taageeraysaan haringay u taageeraan haringay dad waxay doonayaan dadka inuu waqtiga siiyaan lacagta size of the building wuxuu baahan yahay inay ka faydsadaan so for us is a priority waxaan doonaynaa dadka Soomaalida inuu to be proud of who they are their identity dhaqankooda everything so for us it's a really big priority for us we're very very proud very humbled so wallahi runtii qofkii gacanta qaaday waa Rice so Rice ma mahad celinayaan in dhalinyaro badan oo imika aad role model u noqonaysaa jirto oo xaafadan ku nool kuwaasna maxaad ku talin lahayd oo doonaya inay wadada soo maraan insha Allah waxaan talinayaa wax qofkii wax doonka qabaan inuu gacanta qaadaan opportunity ka faa'iidsado alxamdulillah dad badan oo leh wadanka soo koray iskuulayaasha soo maray jaamacad tagay ama qaar jaamacad tagay oo business galeen shaqo galeen usmay adigu jidkaas dad soo maray you're the first one you'll be the last one jidkaas waa soo maray so you're more than welcome and waxa jira dhalinyaro badan oo dadka la caawin kara talo siin kara faisal siin kara Rice committee they do the careers projects careers advice guidance dhalinyaro shaqayaan so dad badan jira so opportunities abundant. My name is Ali and I feel like the event is very going good. There's a lot of different cultures. We're just all having fun. We all eat Somali food. We're all dancing and yeah, mashallah. Hello, my name is Willie and I like the event. It's very good here and I love it. It's just amazing. weli waxaan ku guda jirnaa xafladii hidaha iyo dhaqanka garabkayga waxaa taagan mid ka mida mas'uuliyiinta Rice Project baa taagan magaciisa walaalo weli waxa dira king cudi ku magac dheer hoos waan ugu yeeran dhalisan ka dhacay cudi ka war xafladda maanta aad soo qabaan qaabiseen wallahi horta markuu ugu horeysa ilaahay baa mahadle mar labaadka dadweynaha sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan ee ka soo qayb galay ayaanu mahad celinayna mar saddexaad ayaan ku mahad celinaya ma fahantay xalfadu waxa weeyaan si waxa u dhacday cajiiba mucjisa oo ma taqaanaa iska rabaaniyana oo ma sha Allah dhariga wallahi fanaaniinta loogu timi dadka ciyaarayay faasha showgii ruuxan ku ruwa la ismuusadaniyo wadhow laakiin maanta imika waxa ku eegay waxa sininkii cudi waxa loo magacaabay suldaan buu noqday horta madageen suldaanka inaan ahaa xaq oo maartay suldaanka qarsoonida inaan ahaa saas suldaan ku yahay cudi daawadayaal ila wala kaba ku sii wax gashan haytay war ila xaq oo si madarkeeniyo aad iyo aad wala ma adiga mudan saaxiib magacayga waa Yunis Umar Jaamac maanta waxaan la shaqeynayaa Rice Projects kamaradaanu duubaa taswiiro badan baan ka qaadanay dadkii maanta dad badan baa miday councilkii. Today I saw people who were dancing and jumping and they were playing games and we had delicious food which was very great. It was Somali food. It was rice, chicken and there was abatan. Yeah, very good.